baabuurtan ciidamada oo ay u jeedaan dawladda Mareykanka ayaa waxay ugu deeqday dawladda maamul goboleedka Puntland waa baabuur gaaraysa ilaa 69 baabuur waxaa ku jira 2 booyadood oo ah booyad shidaal iyo booyadaha biyaha waxaa kaloo ku jira baabuurta jiida ama loo yaqaano tow traaga oo markay dhiiriga ama ciidda galaan wax la yiraahdo ka soo saartaa ku jirta waxaa kaloo ku jira baabuurta jiida qoryahan la yiraahdo hoobiyaasha waxaa kaloo ku jira baabuurta ciidamada qaada iyo kuwo kaloo badan maanta ayay waxay ka baxayaan Mareykan waxayna u socdaan oo ay ka degi doonaan dalka Cumaan insha Allah Cumaanna ka bacdina waxay aadayaan boosaasi ka degi doonaan iyo halkaasi Puntland khayr iyo farmaajo hadday noo diideen alaabtii waxa la yiraahdo qadar iyo ay ku deeqday Turkiga waa xamar ku aruuriyeen annaga Ilaahay Mareykan muu nasiiyay wakaa baabuurtii aan ii sheegay tow traagi baabuurta jiiday dhiiriga markay galaan ciidda galaan ka jiiday wakaas mid ka mid ah oo jeedaan wakaas kii kalena waa soo socdaa kii labaadna wakaas soo socdaa wakaas marka waxa la yiraahdo Mareykan baa Ilaahay nasiiyay qadar iyo Turkiga hadii naloo diiday wixii Soomaaliya ay ugu talagaleen oo army truck ama ciidamada qalabka oo xaq aan u lahayn bay qaateen America kana waxa la yiraahdaa oo maleynaya waa bagaas Soomaaliya baabuurta bagaasa la yiraahdo farmaajo mashaqal leh baa laga rabaa mashaqal waxaan baqulay fiye sarka mas kaamirayaashan ma ka fiirsanayna kaamirayaashan meesha ka dhacay Puntland Power haddaan ka dejinayna boosan ka dejinayna